Jamhuuriyadda Djibouti waxay isku soo wareeg ku fadhidaa 23 kilomitir kare maanta waxay isku diyaarinaysaa xawska 40 sano gurada ka soo wareegatay waqtigan uu gobonimada qaadanay waxa uu ahaa dhul aad u kulul heerkulka qaar mararka uu gaaro 45 digrii waxay ahaan jirtay magaalo cidla waxaana deganaan jiray qoysas yar oo reer baadiya marka taariikhda dib loo raaco Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu ahaa dhul cidla laakiin leh kheyraad dabiici ah oo laga helo istiraatiiji ah waxa uu ku yaala biyaha badda cas waxa uu sidoo kale toos ku yahay kanaalka Suez waxaana la oran karaa waa xundurta ay ka adeegato Ethiopia waqtigii gumaysiga Faransiiska dadka waxa ku noolaa dad gaaraya 4,000 qof balaaska Meleleg oo ku yaala bartamaha magaalada madaxda ayaa ahaan jiray meesha kaliya ay dadku wax ku kala iibsadaan maanta Jamhuuriyadda Djibouti ayaa 40 sano jirsatay dalka ayaa waxa uu hodan ku yahay dhanka badeecadaha inkastoo ay qabada jiraan haddana waxa uu ku socdaa inay ka guul gaaraan taasoo Afrika wax badan ka caawin karta hadda dalka waxa ku nool 900,000 qof waxa lagu qadariyaa dhinacyada marsooyinka iyo nabadda iyo xasiloonida ka jirta dalka ayaa waxa ka jira koboc dhaqaale dalka sanadkii 2005 dhaqaalaha dalka ayaa waxa uu kor u kacay 3% bangiga adduunka ayaa warbixintiisa ugu dambeeyay soo saaray sidaas ku sheegay sanadkan aan ku jirno 2017 dhaqaalaha Jamhuuriyadda Djibouti ayaa kor u kacay 7% sida uu maalgashiga shisheeye adduunka Djibouti ku socdo ay ku horumartay dhismayaasha kaabayaasha dekedaha warisgaarsiinta xariga fiber optica zone froshka iyo waliba dhanka warshadeynta dhanka gaadiidka iyo duulimaadyada taasoo dalka ka dhigi kara mid casriya dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu ku haminayaa inuu noqdo dal horumar ka sameeyay dhan waliba sanadka 2035 aragtida taasoo uu dalka uu doonayo inuu horumar dhan walba ka gaaro 40 sano kadib dalka Djibouti ayaa maanta waxa ka jira dhaqdhaqaaq joogto ah oo dhanka koritaanka dhaqaalaha taasoo dunida ay dananayso Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ujeedka ugu weyn waxa uu yahay inay noqoto xarunta dhaqaale ganacsi ee maaliyadda caalamka waxaana ay uga faa'iideysanaysaa jawiga nabadeed iyo ammaan ka jira dalka